waraxmatullaahi wabarakaatu. waan islaamay asxaabteeda waxaan leeyahay isku soo noqod wanaagsan. asxaabta cusubna soo dhawaadaan leeyahay. maanta waxaan wadaa wajiga qaabka loo dhuubo kontoorka sida loo sameeyo. kontoorka muhiim ayuu u yahay marka aad makeup marsanayso, maadaama aan badanaa marka makeup-yada sameynayo aan ka jaro misana aanba maaragtay boobsiis geliyo. waxaan is dhahay kaligiis video u samee si ay dadkana u daawadaan, adigana hawsha kaaga yaraato markaan video sameynayo ay ii fududaato. marka asxaabta maxaa u baahanahay marka aan kontoorka sameynayno? waxaa u baahanahay brushka nooca haysatid ayaa ku sameyn kartaa, laakiinse brushka uu kala yahay brush galaayo markaad wajiga dhuubaysid ayaa la rabaa. sida kan oo kaleeto saan ayuu u sameysan yahay, marka daanka si fiican ayuu u galayaa sidaas. kanna waa sidoo kale waa lagu sameysan karaa, saan ayuu u dheeryahay, macnaha dhinacan ayuu wax yar u dheeryahay. marka asagana sidoo kale waad ku sameyn kartaa. kontoorka waxaa u isticmaalayaa noocan, adiga nooca haysatid waa isticmaali kartaa, laakiinse noocan aniga hadda isticmaalaya. marka kontoorka markaa isticmaalayno ha iska badin. marka ugu horeyso ka afuuf wax yar, markaa soo qaadatid qamaaraa hugsanahay aniga wax yar dhib ayay igu noqonaysaa. marka waxaa u sameynayaa meesha aan marin lahay ayaan marka hore ku hagaajinayaa. waxaa yar qamaarka saan uskooga siki. marka aad sameynaysidna wax yar qoslay iska dhig. waa aragtaa meeshaan laf ayaa ku jirto, intana laf kuma jirto, marka labadaas dhexdeeda ayaad saan ku dhehaysaa. asxaabe inaan kusoo daro ayay ahayd concealerta meelaha la mariyo. marka dhib ma lahan, hadda kontoorkii bas ayaan sameeyey, dhib ma lahan daawado. maxaa la dhahayay concealertana meelaha la mariyo dhan waa ni tusi doonaa insha allah. adiga tartiib ayaan niigu soo gelinayaa videoga, hal mar maahan insha allah, idinkana la socda. waxaa kusoo heray meelaha la dhuubo dhan ayaan ni tusayaa wejigaaga, macnaha xataa adoon dhuubeynin qurux ayuu kusoo baxayaa. marka aad marsan tahay foundation macnaha qurux ayuu kusoo baxayaa. dhuubis oo keliyaata waa loo isticmaalaa, dhuubis quruxna waa loo isticmaalaa. laakiin haddii aad ka waran intaad foundation bes marsatid aad iska socotid yah bur inaad soo isticmaashaa lagu maleynayo. marka xaggan kor saan ayaa ku dhehaysaa. marka ani hadda wax yar qamaarka ay dhibaayo maahine, markaa keligay ahayd marka adiga keligaa hataa mugta dhacdhacdhac isku sii way fududahe. marka xaggan kor ayaan saan ku bilaabayaa, kor ayaan saan uga soo hagaajinayaa. kadibna xaggan daanka daartina saan waa ku dhihi kartaa, saan waa u wadi kartaa, daartina saas gadaal waa u wadi kartaa. marka saanaa ka fiican. marka wax qoslaya un iska dhagaadi, dadan farxasaneyn xataa saas un iska dhig. markii aan foundation keligiis marsanaa iyo markaan farqi weyn ayaa u dhexeynayso. fiiriyo midinka wax yar kusoo qaad ku celi un daamanka waaweyn intay ka ba-ayaan. kadibna xaggan kor ku celceli. marka waa kaas saas ayaa u mariyay. xaggan hagaaji. marka sankana waa la dhuubaa, sankana waa ni tusayaa sidaan u dhuubayo. brush yaraa soo qaadanayaa oo sidaan marka kama badinaayi, wax yar waa taabsiinaysaa, inuu iga bato ma rabo mugta. markaa sanka sameynaysid dad waxay ka bilaabaan suniyaha, dad saan ayay u bilaabaan, saanay usoo wadaan macnaha xaggaas indhaha. marka ani waxaa ka bilaabayaa suniyaha xaggaas, ina aragtiina rajeynayaa. haddana dhinacan kale markaasna saan ayaa dhinacan usoo wadaysaa. laga yaabaa inuunan muuqanin, laga yaabaa inuu muuqdo. marka ani kolley si fiican u arkaa mugta, ani ahaan laga yaabaa inaadan arkeynina, laakiin sanka
wuu isdhuubayaa. Markuu dhuubnaanayo laakiinse dee been markaa iska dhaqdeed san weyn ubaa yeelanaysaa. laakiin badanaa aniga sankeyga ma dhuubo. hadda waa nitusayaa oo keliyaata, ma sameeyo sidaan. so haddaad san weyn leedahay waa dhuubi kartaa micnaheeda. marka aan saas u sameeyo waxaa soo qaadanayaa brush. midkan uu adag yahay wax yar, marka si fiican ayuu u blend gareynayaa. sankiiba way ku dhex dhumeen. marka aad saas u sameysid geesaha ayaan kasoo celcelinayaa micnaha. geesahan ayaan saan ku dhahayaa. kadibna asxaabta maxaa la leeyahay banana powder. haddaad haysatid banana powder ayaad weli xaggaas marinaysa. marka ani banana powder ma isticmaalayay, noocaas cadka ayaan isticmaalayaa. okay, noocan ayaan ku isticmaalaya. sponjigan hal mar ayaa la isticmaalaa, marka isagaa ku marinaya. saana ugu soo tirtiraya. kadibna xaggan ayaad saan ugu xareeqaysaa. haddaad rabtidna hoos waa u wadi kartaa, haddaad rabtidna intaas haddaad marisid ayaad ka tirtiraysaa. marka aniga wax yar ilaa xaggaas hoos ayaan gaarsiinayaa, macnaha soo qurux ugu soo baxo. marka adiga sidaa jeceshahay waa u sameysan kartaa. ma aragtiin qurux calaamadii macnaha way soo baxday, laakiin waa kasii tirtiraynaa, saan kuma daynaynaya. marka sidoo kale kana dhinacan ayaa kasoo qabanaynaa ilaa faruuriyaha xaggaas, faruuriyaha meeshuu ka jeexan yahay ayaa ku keenaysaa. indhaha hoostiisana waa marinayaa xaggan. kadibna sanka agtiisa xaggan saan ayaan ku dhahayaa. kadibna dhinacaas dhuuban ayaan saan intaan ku dhaho, macnaha dhinac dhuuban ayuu leeyahay. kadib sanka korkiisa ayaan saan u marinayaa. waa kaasa. dhinacan kalena waa loo marin karaa. waa kaasa. saas markaa u mariye horay ayaan ka qaadayaa aniga, waa ka tirtirayaa micnaha. haddaad rabtidna waxaa kaga tirtiri kartaa powder ayaa kaga tirtiri kartaa haddaad rabtid. kadibna maxaa la dhahaya, haddii oo xaggaas hilib kaa soo baxo markaad qamaarka hubsatid oo kaleeto xaggaas haddaad leedahay, isagana meeshaas waa celin kartaa, waa marinaysaa micnaha. saan ayaa u marinaysaa sidaan. kadibna wax inaadan lahayn uu ekaanaya. laakiin waa leedahay wax qarsado, macnaha uu ku caawinaya bas inuu ka dhigo dadka markay ku eegayaan oo kaleeto inaadan lahayn, laakiin waa leedahay waxba ayo maahan. marka saan ayaa ugu celcelinayaa. calaamadaas inay muuqato lama rabo, wax meesha la mariyay. hadda sidaa arkaysaan way muuqataa. wax yar korkiisaan saan ku dhahayaa, markaasaa hadda uu baaba-ay. sidoo kale tan way muuqataa. marka wax yar korkiisa saan ayaa ku dhahayaa.
kaasaa hadda uu baaba-ay. micnaha qof hadduu kuusoo dhawaado kaleeto waxaad saas wax u marisay inuu u ekaado lama rabo mogta. kana wax yar saan ka dhic cadaanka zaa-idka ah. wejiga waa inaa wax ku buufisaa si uu maaragtay cadaankan zaa-idka iyo boorboorkan u baaba-o. marka waxaa ku buufsanayaa maakiisa. marka ku buufsanaysidna waa inuu wax yar kaa fogaadaa. marka busta dhan way ba-aysaa. wejigeyga su u qoyan yahay hadda maaragtid. waxa yar suga intuu ka qalalayo. okay asxaabta wakaasa qaabka aad wejiga u dhuuban lahayd. foundation bas intaad marsato ha iska bixin ya. wejiga contour ku sameey qurxi kadibna uu soo baxayaa makeup inaad marsan tahay ayaa la dareemayaa. micnaha haddii kale meesha dad saas intaad foundation uga buuxisid aad iska socotid seriously bente waaye. laakiin muhiim waaye inaad contour sameysaa wejiga aad qurxisaa. laakiinse haddii aad maaragtay intaad foundation isku dhoobto aad iska baxdid ma qurux badno oo kugu celinaya mugta. okay asxaabta intaas ayuu ku egyahay. muhiim waaye wejiga inaad ku buufsataa sababta busta badan iyo waxaas ayuu kaa dejinaya. bustaad iska buuxisay mugtahay. marka asxaabta aad ayaa u mahadsantihiin. intaas waa kaftan. marka videoga labaad la socda qamaarkan unbaan hugsanahay sababtoo waxaan sameyn rabaa indhaha. indha shidan ayaan kasoo tuuri rabaa. marka la socda videogan kan ku xigo indhaha ayaan sameynaya. aad ayaa u mahadsantihiin. hadaa igu cusub tahay subscribe taabo. bye.